shirkan jaraa'id waxa uu ku saabsan yahay jawaab celin ama caddayn ku saabsan halka ay ka taagan tahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka ee dowladda Puntland waxbarashada Puntland xiriirka u dhaxeeya wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka ah iyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland halkan waxaan rabaa inaan ka sheego caddayntaas waxaa horudhaco ah horumarinta waxbarashada dalka waxay lafdhabar u tahay dhismaha qaranka waxayna tahay mid ka madax bannaan qabyaaladeyn iyo siyaasadayn wasaaradda waxbarashada Puntland waxay imtixaan midaysan soo qaadaysay laga soo bilaabo 2003 ilaa iyo hadda oo aynu ku jirno 2020 oo noo qorshaysan inaanu qaadno iyada oo la kaashanaysay dhammaan daneeyaasha waxbarashada ee muddada dheer waxay wasaaraddu ka heshay waayo aragnimo aqoon iyo xirfad ay ku horumarisay tayada hufnaanta kalsoonida iyo sugnaanta imtixaanaadka Puntland waxay awood u yeelatay inay imtixaanka dejiso waxay awood u yeelatay inay iyadu saxdo qaado kormeerto wasaaradda waxbarashadu waxay bixinaysay shahaadada dugsiyada dhexe iyo sare oo buuxiyay shuruudihii loo baahnaa markaas kadib waxaa wasaaraddu ay heshiis la gashay wasaaradda dowladda federaalka ah ee waxbarashada sanadkii 2015 bishiisii 12aad si dalku uu u yeesho shahaado qaran oo midaysan lagana bixiyo magaalo madaxda dowladda Puntland ee Garowe heshiisyadaas waa kuwo aanu halka ku hayno oo cad oo aan saxaafadda iyo bulshada Puntland iyo dhammaan Soomaali aan u soo bandhigayno marxaladahaas kala duwan ee soo martay waxbarashada Puntland waxay fududeeyeen in la helo deeqo waxbarasho oo lagu bixiyo habka kala sarreynta natiijada imtixaanaadka ay qaadaysay dowladda Puntland waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland iyo wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka waxay heshiis ku yihiin geedi socodka iyo dib u dhiska hanaanka federaaliga ah ee waxbarashada dalka iyada oo uu saldhig u yahay dastuurka ku meel gaarka ah ee dowladda federaalka ah iyo kan Puntland waxa ugu muhiimsanaa qodobada laga wada hadlay laguna heshiiyey imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada ee Puntland iyo wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka waxay marar badan ku heshiiyeen u madax bannaanida dejinta qaadista iyo sixidda imtixaanka Puntland sida ku cad heshiisyo dhowr ah oo ay wada galeen labada wasaaradood uuna ka mid yahay heshiiskii bishii 7aad sanadkii 2015 iyo heshiis kale oo ay wada galeen wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland iyo wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ah oo isna ku qodobeysan taariikhdu soo hadhay ama ku mudaysnayd bishii 7aad 2017 qodobadaas waxaa ka mid ahaa in wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ay u madax bannaan tahay qaadista iyo maamulidda imtixaanka midaysan ee dowladda Puntland waxaa kale oo qodob ahayd in wasaaradda waxbarashada federaalku ay talo kormeer iyo taageero dhaqaale ay ku yeelato qaadista imtixaanka Puntland waxaa ka mid ahaa in wasaaradda waxbarashada Puntland ay natiijada imtixaanka u gudbiso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka waxaa ka mid ahaa in laga wada tashado sidii loo horumarin lahaa imtixaanka guud ahaan Soomaaliya qodobada kale ee heshiiska laga gaadhay ee sanadaha faraha badan ee kala duwan lagu soo dhaqmiyay waxaa ka mid ahaa qodobka shahaadada in la isku waafaqo bixinta shahaadada waa arrin muhiim ah si ardayda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay u helaan caddaynta aqoontooda waana mid arday kasta oo Soomaaliyeed xaq u leeyahay inuu helo shahaadadiisa gobol kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kasta oo uu joogo oo ka mid ah dalka Soomaaliya
haddaba labada wasaaradood ee wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland iyo ta federaalku waxay ku heshiiyeen iyadoo la tix raacayo heshiisyadii ay kala saxeexdeen ee aan hore u soo sheegnay bishii 12/15 bishii 12aad 2015 iyo bishii 7aad ee 2017 waxay kaga heshiiyeen arrinka shahaadada qodobada soo socda. waxaa kamid ahaa qodobada lagu heshiiyey in shahaadada dowladda federaalka Soomaaliya laga bixiyo xafiiska imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada ee magaala madaxda dowladda Puntland ee Garowe. qodobka kale wuxuu ahaa in shahaadooyinka lagu wareejiyo xafiiska imtixaanaadka Puntland ay noqdaan shahaadooyin leh serial number ama tiro taxane ah meel ka bilaabmaysa meelna ku dhamaanaysa. qodobka kale ee kamid ah waxyaabaha lagu heshiiyey waxaa kamid ah in saxiixyada iyo shaambadaha shahaadadu u baahan tahay la geeyo xafiiska imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland. waxaa kamid ahaa waxyaabihii dheeraadka ah ee lagu heshiiyey bishii 7aad 2017 oo isla khuseeyay shahaadooyinka in loo baahan yahay shahaado midaysan arday walba oo dhameystay waxbarashada dugsiyada sare uu ka heli karo xarunta dhexe ee waxbarashada dowlad goboleedka uu joogo oo markaa laga hadlayay dowladda Puntland magaala madaxdiisa Garowe. qodobada kale ee lagu heshiiyey waxaa kamid ahaa in dowladda federaalku ay aqoonsato shahaadada dowladda Puntland. waxaa kale oo ku jirtay in la horumariyo shahaado midaysan gaar ahaan nimada oo ah maado ka maqan South Central Somalia. waxaa kale oo ka maqan cilmiga bulshada, cilmiga beeraha iyo cilmiga ganacsiga iyo maadooyin kale oo badan si loo buuxiyo. marka waxay ahayd heshiis in arrinta iyada ahna la soo dhaafay wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka iyo dowladda Puntland waxay ahaayeen deeqaha waxbarashada ee laga helo caalamka. labada wasaaradood waxay ku heshiiyeen raadinta, helitaanka iyo qaybinta deeqaha waxbarashada ee magaca ummadda Soomaaliyeed lagu helo in lagu maamulo cadaalad iyo hufnaan. heshiiskaas oo ku taariikhaysnaa bishii 7aad 2017 waxa uu u qornaa ama qodobadiisa kamid ahaa qodobada soo socda. waxaa heshiis lagu ahaa in si wada jir ah la isaga kaashado raadinta fursadaha deeqaha waxbarasho. waxaa kale oo ku jiray in deeqaha waxbarasho lagu saleeyo tirada ardayda gashay imtixaanaadka dugsiga sare ee sanadkaas lagu jiro. waxaa kamid ahayd in deeqaha waxbarasho ee Puntland ay gaarka u hesho ay wasaaradda waxbarashada ee federaalku ay taageerto aqoonsatana. waxaa kamid ahaa in ardayda Puntland loo fududeeyo si ay u heli lahaayeen fursadaha waxbarasho ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo ku taala Muqdisho, isla markaana la furo furuuc kamid ah jaamacaddaas oo laga furo Puntland. gunaadkii iyo gabagabadii sida ku cad dastuurka dowladda federaalka qodobkiisa 14 waxaa dowladda federaalka ay siinaysaa oo keliya awoodaha kooban oo ay ka mid yihiin arrimaha dibadda, difaaca qaranka, jinsiyadaha iyo socdaalka iyo siyaasadda lacagta. afartaas oo qodob oo keliya ayay si gaar ah ugu tagrifali kartaa ama ay u maamuli kartaa dowladda federaalka ee Soomaaliya. wixii ka soo haray intaas waa qodobo laga wada hadli karo. qodobada arrimaha bulshada dhammaantood waxaa iska leh dowladaha ka tirsan dowladaha federaalka ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. sidoo kale dastuurka Puntland qodobkiisa 4 farqadii saddexaad waxay qeexaysaa in la dhameystiro dastuurka federaalka ah oo Puntland wax ka ansixiyay oo Puntland ay wax ka ansixisay
kadibna afti dadweyne lagu meel mariyo. Puntland waxay lahaanaysaa awoodda dowlad madax bannaan inta dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya uu dhammaystirmayo afti dadweynena loo qaadi doono. sidaa daraaddeed dowladda Puntland waxay ku talinaysaa in si dhab ah loo ilaaliyo dhaqangelinta dastuurka iyo heshiisyadii horey loo wada galay si loo ilaaliyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. qodobada iyo heshiisyada aan soo sheegnay iyaga oo faahfaahsan dhammaantood waxaa laga heli karaa wasaaradaha waxbarashada ee dowladda Puntland iyo wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ah. waxaanuna la wadaagi doonaa dhammaan warbaahinta dalka iyo ilaha kala duwan ee dadka iyo bulshadu ay wax ka akhristaan. waxaan rajaynaynaa shacabka Puntland warwarkii galay iyo wareerkii ay u geysatay hadalkii ka soo yeeray wasiirka dowladda federaalka ee waxbarashada oo runtii u muuqday mid mas'uuliyad darro ah u muuqday oo ka dhigayay Puntland dal ka gaar ah Soomaaliya. arrintaasi inay tahay arrin leh tixgelinteeda isla markaasna dowladda federaalka ah madaxdeeda waxaan faraynaa inay arrintaas wax ka qabtaan. halka kan waxaan ku haynaa heshiisyadii 2015 la galay bishii 12aad ee ku saabsanaa bixinta shahaadada dowladda Puntland oo ay saxeexday wasiiradii waxbarashada ee xilligaas dowladda federaalka ay joogtay. waxa kale oo aanu halkan ku haynaa heshiiskii la galay oo la saxeexay bishii Luulyo 2017 oo ay saxeexeen wasiirkii waxbarashada ee dowladda federaalka xilligaas oo ah xilliga dowladda hadda jirta maxamed cabdullaahi farmaajo xilligiisii wasiirkiisii hore ee waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan oo heshiisyada inta ugu badan saxeexay iyo wasiirkii waxbarashada iyo tacliinta sare xilligaas joogay dowladda Puntland Abshir Aw Yuusuf. heshiisyadaasi waa heshiisyo dhammaystiran kuwa ka horeeyay oo la galay sanadihii 2014 iyo 2015 2009 ee dowladihii ka horeeyay dowladda federaalka ee hadda jirta xilliga ay ku meel gaarka ahayd dhammaantood waanu haynaa. shacabka Puntland waxaan u sheegaynaa inay ku kalsoonaadaan wasaaradooda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland. waxaanu u cadaynay inay jireen heshiisyo fara badan oo dowladda Puntland waxbarashada iyo federaalku ay hore u galeen. heshiisyadaas dhammaantood waxaa cad wasiirka waxbarashada hidaha ee tacliinta federaalka in aanu ama ogeyn ama uu iska indhatirayo ama uu burburinayo oo uu ka soo qaadayo waxba kama jiraan. waxaan leenahay heshiisyadii hore loo galay